magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal maanta waxaa laga furay meherad casri oo la jaanqaadaysa standardka caalamiga ah meheradani oo lagu magacaabo Golden Star Cafeteria and Restaurant ayaa waxa magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ka furay Maxamed Aadan Amash Buuxan oo kamid ah qurbajooga reer Somaliland ee dalka Ingiriiska isla markaasina ku soo laabtay dalka Somaliland meheradani cusub ee Golden Cafeteria Restaurant ayaa waxay kaga duwanaan doontaa meheradii hore magaalada Boorame waxyaabo fara badan ugu horeyn hadaba waa keenay Maxamed Aadan Amash Buuxan oo ka warbixinaya meheradani cusub oo maanta ka yagleelay gudaha magaalada Boorame iyo waxyaabaha ay kaga duwanaan doonto meheradii hore ka jiray gudaha magaalada Boorame waxaan idinku soo dhaweynaynaa dhammaan dadweynaha ku nool magaalada Boorame anigoo magacaygu yahay Maxamed Aadan Axmed Buuxan inaanu idin furay meherad la jaan qaadaysa casriga oo ah cafeteria and restaurant isku jira waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan waa meel aad heer sare nadaafadeeda looga shaqeeyay waana meel aad ka heli doontaan waxyaabaha cuntada fudud oo dhan cashada fudud cashooyinka fudud iyo qureeca intaba waa meel aad arkaysaan sideedaba yacni inay tahay meel wanaagsan oo qurux badan marka gacmo furan baan idinku soo dhaweynaynaa aqoontii iyo xirfaddii aan kala imid qurbaha anoo ka imid Ingiriiska oo maanta dalkiisii hooyo yimid jecelna meheraddan idinku soo dhaweeyo waxaan idin leeyahay gacmo wanaagsan ku soo dhawaada welcome waxaan idin rajaynayaa in aan maad aragtay aad igala soo qayb gashaan haddii ilaahay yidhaa meheradda caynkaasa aad baan yacni idin soo dhaweynaya gacmo furan reer Boorame ku soo dhawaada walaal aad u mahadsantihiin meheradda magaceeda waxaa la yidhaahdaa Golden Star Cafeteria and Restaurant